warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Qaran Dume iyo hooyo Soomaaliyeed. Maanta walaalayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago dhibaatada dumarkii maanta haysato waxay tahay nin hadda ayaan dhaweyto aragteen baraha bulshada waxa si zaid ugu faafay nin naagtiisa video qarsoodi ah ka soo duubay oo gabar kale intuu u diray ay gabadhii soo gelisay ayadana ay soo dhigtay baraha bulshada. So waxaan la yaabay waxa la yaabana ma ahan maanta aragno dumarkii Soomaaliyeed ma qaraxa dib u geystay ma qaxiba maskaxdooda wax ka dhimay adiga mid maanta aad ka gelinayso videogeeda ceebta banaanka dhigayso adiga barito asxaan ku sameeynaa mise wuxuu ku dhigayaa xariiru ku guglaay markuu walaasha xanan u soo guglo waa maya idinka diin isku naxariisan oo idinka isku helin dumarkiina Soomaaliyeed cid idin naxayso malaha marka waxa idin leeyahay gabdhayahow abaa idinka marka ku idinka horta garab isisiiya marka idinka garab isisiisaan oo idinka isku hiilisaan ka aarsan kartaan qof walbeento bini aadan ay dib walbeento oo idin ku dhaca solution u heli kartaan laakiin se idinkiaba lugaha iska goynaaye sida solution u gaari kartaan solution ma gaari kartaan waayo ninkan gabadha walaasha ceebteeda faafinay adiga berito kuma ceeb asturaysa ogtahay haddaad ogeyn hadartaan ogow waayo wuxuu kugu ceeb astureen mid uu ceebteeda faafinayo waa gabar tan ceebteeda faafinaysana waa gabar kornaageed ka isma dheerisay aniga ila tahay marka waxa idin leeyahay gabdho waxa maalin dhaweyto shaaka la iga sheekeynaa gabar waxay igu tiri gabaran saaxiibanaha waxaan la noolaa muddo gurigeeda ku noolaa marayaheeda isla xirineen wax walba inta isla xirineen ninkeedii aan ka qaaday markii dambe intuu because ayada way dayacneed ay tiri haddii ayada dayacneed adiga aruursaneed marka berita adigana taas inay kugu dhici karto moogid oo mid kale intay ku timaado ay ninka ka qaadayso oo guriga tit for tat way wax adiga maanta tasamaysid qof kale inta berita adigana kugu sameeyay marka way dayacneedo ninka uu muusa qalaminin af Soomaali ma aha marka waxa marka fiirsid dumarkii Soomaaliyeed waxa ku la ekaanaysaa dad maskaxdooda damage weyn gaaray ay buu ekaadeen gabdhihii I don't know why maxay idin ka qaldan su'aasha meesha taalo waxa waay adiga maanta waxa qalad ka sameysay berito qof kale inta adigana kugu sameeyay ma fahantay marka waxa loo baahan yahay nin waa waraabe haddii adiga uu kugu yiri naagteeda way xuntahay naagteeda kana sameeysa adigana reasonki adigana banaanka la marmarin wuxuu yiri naagteeda sidan waa uma qalanto waxba kaama gelin dadka ayaga shalay isguursadeen ayaga isjoosgareeyeen saaxiib baa tahay guriga lagu invite gareeyay so invitation kaaga gabadhaas walaasha oo ku soo dhaweysatay oo maradaada ka dhigatay maradeeda inay cuntaha ugu bedelin ma fahantay marka waxa loo baahan yahay gabar walba inta oo Soomaaliyeed hooyo walba inta oo Soomaaliyeed inay hooyada kale inta u damqato gabar walba inta inay gabadha kale inta u damqato ma ahan anaga inaan lugaha iska goyno hada anaga lugaha iska goyno oo dhibaato kale inta haysato oo burbur kale inta qoorta noogu jiro oo ilmaheena iyo nimankeena iyo meel walba inta dayac naga haysto anaga markaas ay sii cunno wallahi uma maleynaa inaan horumar gaari karno horumar waxa lagu gaaraa markay gabadha kale inta u hiiliso oo gabadha kale inta u damqato oo walaasha dhibaataysan walaasha kale inta ay hiilo markay uga soo baahato ayuu hilisa u maleynaa aniga in horumar lagu gaari karo oo u maleynaa in horumar lagu gaari karo maanta dhibaatada socoto waxa waaye gabadh walba inay gabadha kale inay ku tahay maqaski ay lugaha kaga goyn leedahay inay wadato afaysan marka taasna looma baahna walaalayaal waxa idin leeyahay ilaahay xaq ha idin waafajiyo kuwa xaq isku dardaarmo Allah naga dhigo Soomaali way dhibaataysan tahay dhibaatada Allah ku kor qaado siiba gabar Soomaaliyeed way dhibaataysan tahay dhibaatada Allah ku kor qaado dhibaatada maanta haysatan waa mid anaga koow isku keenno waxa anaga koow isku keenna midana dhibaataysan mid kale inta warkeedii wada midana burburku ku dhacay oo gurigeedii dhibaatada taalo mid kale inta na heblo ma maqasho waxa ku dhacay waa la furay hadii ayada maanta la furay adna bariya lagu furi karaa naama maqashay heblaay waxa ku dhacay ilmiya ka halaabay hadii ayada maanta ilmiya ka halaabay adna bari ilmaha ka halaabi karaa marka qof bini aadan inaa ku qusashid waa qalad qof bini aadan xanuunkiisa inaa liin marmarisid boog meel kaga taalana waa qalad waxa maqli jira nabar kugu yaala waran lagu ma lagligo soo marka waa idin bariyaaya Soomaaliyeed gabdhaheena Soomaaliyeed aan isku hiilino aan hal far noqono walaalayaal dhibka maanta walaasha ku dhaca adigana waxa uu walaasha ha ku damqinin walaasha ha ku noqonin nabar yani adigi dhibsato hadalkii ay dhibsanayso waxa ay dhibsanayso qofka bini aadanka waxa uu dhibsado waa laga daaya waxa ay dhibsanayso ku celcelinina awlaadeeda hadday maanta ka dayacan tahay ilaahay baa laga yaabaa inuu berito u soo hanuuniyo oo ilaahay intay tala saarato ilaahay gacmaha kor ugu taagto in awlaadeedaas ilaahay u baraariyo berito cunugeedii wanaagsan la arko adigan maanta ku caynayana ilaahay baa berito sida cunugaaga noqon doono
ilaahay baa og berito siduu ninkaaga noqon doono. marka yaan isku caynin dhibaatooyinkan haysta, yaanan isku dulminin ragga aan qabno, yaan saasuu yiri ninkeediyo kanuu yiriyo waxba kaama gelin. wuxuu yiri waxa ka fiican waxa maanta tayaala sida xalkooda loo heli lahaa ka wanaagsan. marka waxaan idin dhaha lahaa gabdho Soomaaliyeed meel walba inta joogtaan walaalayaalo dhibaatada iyo xanta iyo problemka iyo waxaan maanta wadaan inta iska dayno oo u jeedaan indhaheena bal gadaal aan u soo celina indhaheena oo u jeedaan maanta dhibaatadan haysatee bal dhibaatadan haysatee saa solution u weelin lahayn aan dib u soo eegno, bal aan dib ugu soo jaleecsano qoysaskeena dhibaatada haysata. bal inaan anaga marna dabka isku shidna oo dhibaato isku keenna oo dhibaatada isku keenay gabar kale inta loo dhiibay buunbuuninaysa sida hadeertaan waxa social media dhexyaacayad u jeedaan oo kaleento. waa naag waxa ka dambeysay, waana nin waxa uu soo gudbiyay, waxa uu ka soo gudbiyayna waa gabar gabadha kale inta dhibaatadeeda faafinayso ku farxayso adigana I don't think so inuu adigana ku amaani doono ninka maanta naagtiisa ilmaha u dhashay oo intaas u soo samirtay dhibaatadeeda gudbinaya adiga kuma amaani doono. caqli darro un bay ku tahay daa waxa samaysayna waxaan ku dhihi lahaa dib inta iskugu jeesatid oo dib iskugu noqotid iscanaano musqusha isku canaano xataa hadaa meelaha isku canaanato weeyda bersada iyo iskala xishood musqusha inta isla gedish iscanaano ma fahantay. marka waxaa idin dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed oo aan xaq isku dardaarano ilaahay noo naxariisto annagana isku naxariisano marka isku naxariisano ilaahay noo naxariisanaya insha Allah biidmillaahi kariim. hadal badan ma raba inaan idinku daaliyo video dheerna ma jecli, waxaan jeclahay markaas ayada wixii aan raba inaan walaalahayga kala hadlo video ma soo sameeyni baryadan waa xanuunsana walaalayaal isku soo duceeyay insha Allah biidmillaahi kariim. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qaasatan hooyo Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed like and share subscribe waa xaqiina wixii comment ahna walaalayaal xaqiina weey insha Allah biidmillaahi kariim. xaq ilaahay inaan isku dardaarano ayaan idinkaga tagayaa. wabillahi tawfiiq.